xogo dheeraada ayaa laga helayaa dhagixii weynaa ee la sheegay inuu ka mid yahay meerayaasha hawada sare kuna soo beegan yahay dhulkeenna iyadoo khubarada dhanka xidigiska iyo hay-adaha saaminta hawada sare ku adkaysanayaan inuu dhagaxa xajmigiisu ka wan yahay sidii loo haystay laakiin muuqaalkiisa la arki karaa uun masaafadiisu tahay 3 ilaa 5 mayl waana dhagaxa sida meeraha u wareegaya samada sare kaasoo bii'adiisa iyo cimiladiisuna aad uga duwan tahay meerayaasha kale ee la miisaanka waana dhagaxa meeraysanaya ee ku dhowaaday cadceedda kana soo xambaartay cimilo diirimaadkeedu xad dhaaf yahay kaasoo dhagax iyo dhoobo qara lehna ka samaysan sida shamaca oo kalena u iftiimaya barnaamijkeena xogta dahsoon waxaynu daaha kaga qaadi doonaa halka xilligan dhagaxaasi lagu sheegay isbedelada ku yimid xawaarihiisii dheereynayay ee uu dhanka dhulka ugu soo dulundulcoonayay qaabka ay u yaraatay khatartii laga qabay inuu dhulka hirdiyo iyo waxa ka jira xidhiidhka la sheegay inuu dhagaxaasi la leeyahay cudurkan faafaya ee coronavirus barnaamijka qaybtiisa dambe ayaynu sidoo kale ku daaha qaadi doonaa dhagaxa kale ee dahabka malaasana ee aadamaha dunida ku dhaqan uu ilaahay deeqda uga wada dhigi karo dhagaxa oo la sheegay inuu heehaabayo hawada inaga sarraysa dadka qaarkiina ay halhaleel u boodeen oo u holladeen inay kor isu yara hinqiyaan oo hoos ula soo degaan dhagaxaas macluumaad kale ayaa raaci doona ku soo dhowaada barnaamijka dhagixii weynaa ee aynu hore ugaga hadalnay barnaamijkeena xogta dahsoon oo ay macluumaadka la xidhiidhay soo daayeen hay-adaha saaminta hawada sare ee caalamka gaar ahaana ay hay-adda naasa sheegtay inay si joogta ah ula socotay dhaqdhaqaaqiisa ayaa culimo badan oo dhanka xidigiska ahi ka qayb qaateen arrinkiisa kadib markii la sheegay inuu ku soo beegan yahay dhulka aynu ku nool nahay oo haddii uu ku soo dhacana uu sababi karayay khasaare ballaadhan dhagaxaasi oo hadda markii hawshiisa laysugu yimi loo bixiyey magaca atlas ayaa la ogaaday inuu ka wan yahay masaafadii loo filayey isagoo samada sare ee dhulkeenna soo gaari doona dhammaadka bisha abriil ee aynu ku jirro laakiin isbeddel ay cadceedda uu ku dhowaaday ay ku samaysay dhagaxa socodkiisii darteed aanu haatan u duqaynaynin dhulka masaafo lagu arki kari doono agabka aragti dhoweeyaha ah iyo qaybaha kale ee teleskobyada sida ay hay-adda naasa ku sheegtay warbixin cusub oo xaaladda dhagaxaasi ay ka soo saartay ma jirto ayaa la yidhi khatar la saadaalin karo oo haatan muuqata oo uu dhagaxaasi u geysan doono dhulka aynu ku noolnahay waxaana uu isu soo taagi doonaa masaafo durugsan khabiir dhanka xidigiska oo u dhashay dalka ustri master miguel gager oo isagu ka mid a dadka ay u suura gashay inay sawirra ka qaadaan dhagaxaasi waxa uu sheegay inuu leeyahay cimilo diiran oo uu dacal ka shidmayo kaasoo markii ugu horreysay ee teleskoobka lagu arko ay ahayd bishii disembar 2019 ahaana mid aada u darugsan iftiinkiisa iyo oolka ka shidmaya dhagaxaasi waxaa xilliga gudcurka lagu arki karaa baa leeyahay cidhifka waqooyi ee caalamka isagoo soo gudbaya oo soo tallaabaya oo dhammaadka bisha abriilna indhaha caadiga ah lagu arki karo iyadoo oo aan wax arag dhoweeye ah loo isticmaalin gaar ahaana waxa uu si weyn uga muuqan doonaa dadweynaha ku nool mandaqada damaam ee boqortooyada sacuudiga doctor cabdalla oo bare ka ah kuliyadda juqraafiga ee jaamacadda qasiim ee boqortooyada sacuudiga waxa uu sheegay in dhagaxa meeraha ee atlas uu dhammaadka bisha midabkiisa maarin dhalaalka ah ee foolkaanaha u egi uu u bedelmi doono midab buluu ah kaasoo buu yidhi aynu si toosa indheheenna ugu arki karno xilliga caalamka kale ee dhanka xidigiska Tommy Phillips ayaa laga soo xigtay in dhagaxani yahay mid 80meeyadii qarnigii hore sidan oo kale loo arkay qiyaasaha wareegiisana la filayay oo la sii saadaaliyay inuu soo muuqan doono sanadka 2020 isagoo sanadkii 2013 u dhawaaday cadceedda haatana culimada xidigisku waxay isku raacsan yihiin inuu dhagaxa atlas mar kale si cad uga wada muuqan doono caalamka marka la gaaro 30 bisha Maarch sanadka 2021 dabeetana oo bartamaha bisha May ee isla sanadka ku qarsoomi doono cidhifka waqooyi ee caalamka iyagoo dhammaan culimadii ka hadashay xaaladda dhagaxaasi ay beeniyeen in dhagaxaasi uu xidhiidh la leeyahay cudurka ku faafaya dhulka aynu ku noolnahay ee coronavirus oo xilligii uu ka dilaacay Shiinaha ay ku aadanayd markii la arkay dhaqdhaqaaqa xadaafka ee dhagaxaasi inta haddii aynu kaga gudubno qisada dhagaxii la saadaaliyay inuu dhulka duqayn doono oo haatan isbedel ku doonin insha Allah
ayaa waxa aynu wax ka taaban doonaa dhagaxa dahabka fadhiya ee qiimihiisa lagu sheegay trilinaadka dollar. xilli aynu hay-adda sahminta hawada sare u naqaano kuwo daah qaadi kara uun meerayaal wareegaya iyo waxyaabo kale oo hawada sare ku saabsan, ayaa haatan hay-adda naasa waxay si kedisa aynoogu wargelisay shay ogaanshihiisu aanu macquul inuula muuqdeen haddii aanay horteenna soo dhigin xaqiiqooyinka ku saabsan mid ka mida meerayaasha ku wareega cadceedda oo gebigiisuba ka samaysan macdanaha qaaliga ah sida dahabka iyo balatiniyamka. meeraha ama dhagaxa oo dadweynaha caalamka ku nool oo dhami ay qaybsan karaan khayraadkiisa, iyadoo haddii ay ku guulaysato hay-adda naasa inay dhagaxa meeraysanaya dhulka soo gaadhsiiso ay tallaabadaasi dhaawici doonto dhaqaalaha caalamiga ah ee maanta jira, maadaama uu dhulka gelin doono qiimaha dahabka iyo dheemanka keydka loo haysto. sida ay sheegtay hay-adda naasa oo go'aansatay inay bilowdo socdaalkeeda ay ku baadi doonayso dhagaxa meeraysanaya oo loogu magac daray Siki-60, kaasoo markii ugu horreysay ee la ogaada jiritaankiisu ay ahayd 1852, inkastoo aan xilligaa la daaha qaadin inuu dahab ka samaysan yahay kuna daboolan masaafo 100 kilomitira, iyadoo dayax-gacmeedka ay naasa u dirayso sanadka 2020 la filayo inuu gaadho meeraha sanadka 2026, waxaana ay ku adkaysanaysaa hay-adda naasa inay xilligan halkaa u tegeyso sidii ay baadhitaano cilmiyeed uga soo samayn lahayd, laakiin aanay hantida dhagaxaasi ka samaysan yahay waxba ka soo qaadanaynin. waxaana la ogyahay inuu ku sugan yahay meel u dhexaysa meerayaasha saxal iyo mariikh. wargeyska dasen ee dalka Britain oo qisada dhagaxa dahabka wax ka qoray waxa uu sheegay inuu ka samaysan yahay macaadin qaaliya oo qiimaheeda aan xisaabaha jiraaba si fudud loogu sheegi karin. dahabkuna sidiisaba waa ka ugu qaalisan macaadinta la yaqaano, kuwaasoo la daaha qaaday muddo 10 sannadood ka hor, waxaana la heli karaa oo la soo saari karaa isagoo keligiya iyo isagoo ku dhex khaldan maadooyin kale, waxaana laga ururiyaa meelo kala duwan oo ay ka mid yihiin laagaha webiyada ku aroora, bannaanada iyo dhulka buuraleyda ah, waxaana qiimaha gaarka ah u sii yeelay saamaynta iyo xidhiidhka uu la leeyahay siyaasadda maaliyadeed iyo talacageeda caalamka, iyadoo dhaqaalaha caalamiga ahina ku tiirsan yahay qiimaha dahabka marka uu kor u kaco iyo marka uu hoos u dhac sameeyaba. culumta astronomiga ama xidigiskuna waa qayb ka mid ah aqoonta hawada sare, taasoo ay shaqadeeda soo hayeen khubaro kala duwan muddooyinkii 10 sannadood ahayd ee lasoo dhaafay, iyadoo hadba heerkii ay ilbaxnimada adduunka maraysayna la jaan qaadisay oo ay dadka Soomaalida lafteedu lahaayeen aqoon-yahano badan oo dhanka xidigiska. xilligan lagu jiro dalalka waaweyn ee caalamku waxa ay leeyihiin hay-ado sahaminta hawada sare, hay-adaha oo ay ka mid tahay amaba ay ugu horeyso hay-adda sahaminta hawada sare ee dalka Mareykanka ee NASA, waxaana caadiyan jirtay inay NASA saamayn iyo xidhiidh la leedahay 99% warbixinaha ku saabsan hawada sare. cid kasta oo doonaysa inay dadka wax uga sheegaan warbixinaha hawada sarena waxa ay tahay inay soo qaataan xogo iyo macluumaad meel ku aroora oo ay hay-adda naasana qayb ka tahay. cid kasta oo doonaysa inay soo tabiyaan macluumaad ku saabsan hawada sare ama mawduucyo kaleba la xidhiidhana waa inay marka hore ku go'aan qaataan in dadka dhageysanaya badankoodu ay ka aqoon badan yihiin ama uga xogogaalsan yihiin waxyaabahan uu soo gudbinayo. mana aha inuu soo gudbiyuhu caadaysto inuu warbixino ra'yigiisa uu ku cabirayo uu soo gudbiyo dadka ku xidhan, gaar ahaan marka aad ka warramayso xog ku saabsan hawada sare oo haddana aadan soo xiganin haba yaraatee macluumaad ay hay'adda naasa sheegtay. taasina waxay caddaynaysaa in ujeeddada warbixintaadu aanay dhammaystirnayn. dhanka kale inta badan waxaa dhacday in macluumaadka iyo warbixinaha yimaada ay isbedelaan oo development sameeyaan. haddii markaa aad la bilaabi kari weydo marka hore oo aad isbedelkii dambe ee warbixinahaasi sameeyeen aad soo qaadato, taa macnaheedu maaha inaad wax kama jiraan ka soo qaado qaybtii hore ee ku dhaaftay ee aadan nasiibka u yeelan inaad baahiso. laakiin waa inaad xustaa in isbedel dhacay oo horena ay sidaa iyo sidaa waxu jireen ama loo filayey. arrinta kale ee aynu doonayno inaynu isu caddayno dadkeenna warbixinaha tabiyaha waa inaynu ognahay karaamo ilaahay siiyey aadamihiisa oo tusaale ahaan khubarada dhanka xidigiska ee caddeeyey inuu dhagaxaasi hawada sare ee dhulkeenna iman doono wakhti cayiban uu sidoo kale ilaahay garansiin karo inuu dhagaxaasi dhulka soo gaari karo iyo in kale oo ay ka warrami karaan.
iyadoo ilaahayna qur-aankiisa inoogu caddeeyey inuu shay kastaba sabab u yeelay inta badan marka ay dadka inagu xidhan aynu la wadaagayno macluumaad waa inuu hadalkeennu cad yahay oo fahamka layna fahmayaana yahay mid xidhiidhsan oo aynaan shay isku hal mar laba magac u sheegin ama aynaan laba sifood oo kala duwan ku tilmaamin tusaale ahaan inaynaan laba kelmadood oo isxiga ku odhanin waxaasi waa dayax iyo dayax maaha amaba waxaasi waa dhagax iyo dhagax ma aha waa inaynu raacno oo ku caloladayno ka saxda ah ee macluumaadka la xidhiidha mana aha taasi in qofka wax tabinaya aanu khaldami karin laakiin dhammaanteen waxba aynaga khaldami kara arrinta layska ilaalinayaase waa inaadan markaaga horeba khalad u badheedhin adigoo ujeeddooyin iska yar lehna haddana aadan ku xadgudbin dadkii kugu xidhnaa waxyaabaha aynu ka hadlaynaana waa talooyin nastiixo oo aanay wax eedaynahay ku lamaanayn cid gaar ahna loola jeedin waana qayb ka mid a xirfadda suxuurfinimo ee aasaasiga ah taasoo ay adag tahay in cid waliba buuxiso waajibaadkeeda iyo qawaaniinteeda